بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. waxaan joognaa waqtigii aan qaban jirnay ziyaartii sheekheynka maxamed cabdi xasan bimaalow iyo aba macalin nuur maxamed siyaad raxmatullahi calayhima, oo aan qaban jirnay bisha rajab oo la joogo waqtigeedii hadda, taasoo noo bilaaban jirtay kowda rajab oo aan khatimi jirnay labada shacbaan. alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. sidaa ogtihiin mashaaikhdeenii qiimaha badnayd oo diinka ilaahay faafin jirtay, oo qur-aanka faafin jirtay, xasuustooda waxay nagu tahay waajib, u duceyntoodana waxay nagu tahay waajib. ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku dhahay markuu ammaanaya kuwa muminiinta, rabbana kfir lana ay dhahayaan waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu. marka jeclaanta aan u qabno darteed waataan qur-aanka akri jirnay, oo mawaacid aan qaban jirnay, oo sadaqa bixi jirnay waqtigaan oo kaleeto. dhibaatada dalka ka jirta darteed, cuduradan iyo balaayadan faafay, allah naga koriyo, adduunka dhan qabsaday, rogaal celintan adduunka kusoo laabatay ee cudurka covid-19-ka, gaar ahaan dalka soomaaliya kasoo laba kacleeyey. waxaan go-aansanay anagoo fartoomayna xadiidka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam, idaa samictum biطaacuuni fi ardin falaa tadkhuluuha waidaa waqaca biardin waantum biha falaa takhrujuu minha. haddii aad ku maqashaan in daacun ku faafay dhulalka ilaahay kamid a, magaalooyinka ilaahay kamid a, ha gelina. haddii oo adinkoo joogtiin meel oo daacun ku faafa oo cudurkaas kusoo dhacana, cudurada faafa ah oo meeshaa joogtiin ku dhacana, adinka ha ka bixinina magaaladaas, meeshiina jooga si looga hortago faafinta cudurka. marka xadiidka nabiga inaan fartoono waay sala allahu alayhi wasalam. muslimiinta waa isjecel yihiin, waa iskaalmaystaan, waa isdaneeyaan, waa isku dhibnayaan, sida adduunka islaamka o dhan aa ku aragteen. oo kacbada ay u horeyso, oo masaajidka nabiga uu ku xigay alayh isalaatu wasalaam, waa la fartoomay. dadkii oo dhan muslimiinta waa isku waafaqeen, ijmaac ay noqotay. dalalka qaar jumcadii iyo jamaacadii waa la joojiyey muddo sanad ah. hadda mar dhow haddana la bilaabay, haddana dib aa loo laabtay. soomaalida meel walbay joogto ha ka fool jignaato cuduradaas. faafintiisa dhibaatay nagu tahay. muuminka naftiisa waa qiimo badan tahay, inay go-do lama rabo, xaq dara ku go-do. wixii ilaahay qadar raalliyan ku nahay, laakiin dadaalkaas inaa qaadatiin la rabaa insha allah. marka sida uu imaam bukhaari saxiixiisa ku soo qoray xadiidkaas, in zaa'iriinta imaan jiray oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisa ka imaan jiray, sanadkan aan dhahno meeshiina jooga, inteena magaalada joogta muqdisho aa idinka wakiila. kuwa dibadda jirana yaysan imaan, kuwa gobolada joogana yaysan soo safrin. maxaa yeelay jeclaanta aanu qabno mashaaikhdeenna iyo culummadeena diintana soo gaarsiisay raxmatullaahi calayhim jamiican, waxayna bartay maxabadaas, waxayna bartay inaan adinkana idin jeclaano, oo wixii ayaga aan ka baranay ah inaan muminiinta jeclaano, oo ilaahay dartiis aan idin jeclaano. marka caafimaadkiina iyo nabadgelyadiina inaan ka fikirno waajib bay nagu tahay islaami ah. sidaas darteed markii guddiga xerta maamula ay shir galeen, waxaa ka soo baxay go-aan ah in dib loo dhigo isku imaashadii, oo aan wixii la samey jira la sameynin, 99% la khafiifiyo. sidaas daraaddeed waxaan idinkaga cudur daaranaynaa in arrintaas ay dhacday. waxaana idinka codsanaynaa inaad dalabkeena aqbashaan, oo aad meeshiina joogtaan, meeshiina kasoo duceysaan. waa gaaraysaa ducada iyo qirada mashaayikhda, ayagana cizi iyo maqaam allah u ziyaadsho, aclaa faraadiisi iljanaan allah dejiyo. adinka ziyaarta raba inay kasoo qayb galaan, ama qurbaanka ka bixiyaan, ama qirada ka akhriyaan, ama ka khidmeeyaan, ama qalqaaliyaan, khayrka adduuniya aakhira allah idin kulmiyaan idin leenahay. إن شاء الله تعالى سنة كان سنة كيس كان هرمري برواق الله نوجرسيو
dalkeenana dhibaatada uu ku jiro oo colaada iyo cudurada allah ka saaro, horumar iyo barwaaqa iyo midnimo allah gaarsiiyo, dowladda cadaalada oo islaamku dhaqmayso oo dadka iyo dalka uranna allah noo keeno, khayrkaas inuu dhacane sabab allah nooga dhigo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.